halkani waa xarunta dhexe ee lagu soo dhaweeyo dadka ka soo laabta qaxootiga waxa maamusha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka waxaana taageerta hay'adda qaxootiga adduunka waxaan u nimid sidaan u ogaano nolosha 11 qof oo ka yimid waddanka Liibiya waxaana suuro geliyay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan dawladda Soomaaliya waxa ku jira 6 qof oo hal qoys ah waxaan doonaynaa inaan wax badan ka ogaano xaaladda noloshooda iyo dhibaatooyinkii waddanka Liibiya ay kala kulmeen intii ay ku noolaayeen waxaa halkan jooga oo aan rabo horeenan Ustaad Cabdiraxmaan oo ah qoyska aabahooda ما شاء الله سيتحي ما تكبر ما شاء الله أستاذ عبد الرحمن وإلهي ودن كيف دي سؤالي الحمد لله يا من كان ودن كيسي وحدي وما خبا صراحة الحين هذه السلام سيتين على ذكرهم في عندين ما شاء الله هل كان يعني نمت عن واحد بدن وجانو nolosha qoyskan oo kamid ah 11 qof wadanka Liibiya dawladda Soomaaliya ay suuro gelisay in laga soo celiyo iyadoo Soomaalida wadankaas ku nool dhibaatooyin ba'an lagu geysto wadankaasi halkaana u tagay intooda badan tahriib si ay uga sii gudbaan wadamada Yurub waxa rabaa inaan kala sheekaysto Ustaad Cabdiraxmaan Ustaad Nafdiisi ma santahay rabaa bal ugu horeyn inaad iga sheekayso Liibiya markii aad tagtay markii kuugu horeysay sida aad ku tagtay ugu horeyn aniga nin Liibiyaan ah meeshan iga waday waxaan ka shaqeynay safaradan Liibiya Ariban ka kala hayay marna waan haaqay marna Ariban ka kala siyaasan ahay kadib ninka markuu halkan iga waday waan u shaqeeyay san ugu shaqeynay waxaan dhahay warniyo wadankayga ma baahanahay waan baxayaa lacagtiga si aan baahanayo baasaboorkii wuxuu yiri Soomaaliya dagaal baa ka socdo mushaakilaadkeeda baan insha Allah dagaal haduu ka socdo sheegaysaa 30 mushakil hadii ka dhaxaysa taa waan aadiya oo lacagteeda iyo baasaboorkii dib wuxuu yiri nin Liibiya dhaxdiis jooga ma askari jooga ma ninka madaxweynaha Liibiya haasta orod u dacwooyo in iga ka qaadi karo mal adigu waa nin madow waxa oo qiimo ay qaayaan lahayn wayna waan saga tagay ilmihiigan watay عبد الرحمن إبراهيم وأفرتن إيشان جير مدة 12 سنة أكون على دلك ليبيا qoyskiisu waxay ka kooban yihiin 5 ruux oo kala ah 4 caruur ah iyo hooyadood waxa lagu geystay dalka Liibiya dhibaatooyin kala duwan oo aan ka go'in dareenkiisa markaan baxo oo shaqan aadi aan siraado meelad aadaman jid walbo tuuga taagan waa lagu qabsanaa waa lagu keenaa waa lagu garaaca si kasta lagu garaa islaantan qabo alxamdulillah rabbil aalamiin ilaaha nasiibkeeda ka dhigay waa la qabsaday ilaa hadda dhabarkaas iyo nurtu way ka dhaawacan tahay ilaaha subxaanahu wa tacaala rabbi u soo deeyay naas ilaahan ku mahdiya rasuulkiisa maxamedka Muna Cabdi Karaama waa xaaska Cabdiraxmaan waxaana ay miir beeshay markii falkaasi kufsiga ah lagu la kacay inta uu xabsiga ku jiray Cabdiraxmaan waxa loo geystay dhaawac ka muuqda jirkiisa iyo mid ku qarsoon anigu waa dhaawacan ku sheegay dhaawacayga waan ku tusay waa la khalay madaxayga qoriya la dhacay dhabarkayga waa jeexan yahay sanad ayaan ugu xirnaa oo isticmaar aan qorada fatana arkin isticmaar aan ku jiray raashin aysan lahayn dil iimaan ilaahay kana lagu dilaa waxa lagu leeyahay lacagteen u sheeg dadkaaga u sheeg lacagteen hadaankeen loo ku jiray qafarkaas aysta Cabdiraxmaan aad ayuu ugu faraxsan yahay in isaga iyo qoyskiisuba ay ka soo badbaadeen dhibaatada ka jirta wadanka Liibiya wallahi noloshayda hadda aad u biqaali u tahay aniga haddaan caawa dhinto alxamdulillah rabbil aalamiin ilmahayga waan ku faraxsanahay inay wadankayga joogaan aysan qof bini aadina san ku taagi karin hadda hadirtan haddii aan dhinto rabbiga waxaan ka baryaa oo aan ku faraxsanahay oo hataan rabbiga ka baryaa inaan jannadii firdaws ilaahay ka soo ilmahayga waan ku faraxsanahay waana ka hordaya laana wadankooda joogaan alxamdulillah rabbil aalamiin ilaahay u soo sakhray waa uu ilmeeyay inta uu iga sheekeynayay dhibaatadii ay kala soo kulmeen wadanka Liibiya haddii wadankii aan joogla ilaa waqtigaas islaanteeda hortayga lagu isticmaalay anigoo indhaas ka fiirinaya
inkastoo ay aad ugu faraxsan yihiin cabdiraxmaan iyo qoyskiisu in ay dalkooda dib ugu soo noqdeen haddana ma haystaan wax ay ku dabaraan nolol maalmeedkooda lacag yar oo halkaasi uu ka shaqaystayna waxaa looga qaatay madax furasho ahaan markuu warayso meelaan saxla ma haysto waxaan macnaha aan ku dhaqmo oo macnaha aan guri ku joogo ma haysto guri waxaan ku ijaarto ma haysto boos maalay soo xagarta ma haddaanan ani iga aaminayna waa kaas walaashay meeshay degantahay fiiriya guri kuma leeyahay xamaran guri ku leeyahay meelaan guri ku leeyahay jirinba qaxootigaasaan weligay ku noolaa aabbey ku noolaa ehelkayga ku noolaa oo haddana aan ku noolaa qaxootigiiaan ku laabana haddii allah awoodi kii awoodi karo inuu igacan qabto ilaahan ugu ducaynaa iyo rasuulkiisa maxamedka aan ugu ducaynaa 100% oo waa mahadsantihiin allahayna waxaan ka baryaa madaxweynaheena Soomaaliya inuu ilaahay cumri dheer iyo cibaado inuu ilaahay siiyo meeshuu ka ooman yahay ilaahay ka waraabiyo awlaadiisa ilaahay la deesto asaga iyo taageerayaashana kullu dhibaatada ku dhacday cabdiraxmaan ibraahim iyo qoyskiisa waxaa mid la mid ah lagu geystaa Soomaalida tahriibka ku mara wadanka Liibiya waxaana uga digay dadka Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay tahriib u aadaan wadanka Liibiya wallahi anoo dareenkii ku muujinaa waxaan dhihi lahaa dad walaalahay oo kii Liibiya inay ka gasho niyad oo ku noqdo inay ka gasho anigu waxaan dhihi lahaa waxaan ugu ducaynaa inuu se mardama niyad iska gelin oo san ku noolaan beledkaas iyo wax u eg iyo wax agaarkiisaba maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay wadankaaga ilaahay ku mahdi rasuulkiisa maxamed ku mahdi guri haddaa leedahay gurigaaga iska joog haddaadan lahayn iska shaqayso bas taasaan dhihi lahaa rabbiga ugu ducaynaa insha allah cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho